وهاجا ugu dambeyntiina haddii aad in badan maqashay rag Soomaali oo lagu naanayso hebel gadweyne iyo shaaruba dheere iyo waxyaabo la mid ah taa imika iska ilooba magaalada Antwerp ee wadanka Belgium ayaa toddobaadkan horaantiisii waxaa ka dhacay tartanka caalamiga ah ee gadka iyo shaarubaha meelo fara badan oo caalamka ah la isaga yimid haddii haddaba guddida kala saaraysa aad ka mid ahaan lahayd bal hadda muuqaaladan daawo oo horyaalka yaad siin lahayd aniga kulliba aad iyo aad bay igu adkaatay sidii aan u kala saari lahaa haddii weli aanad muuqaalada ka boganin bal mar kale aan idinku celiyo de wax kaliya kuma garatide waa dad aad iyo aad u dhaqay oo u dhaqday gadhkoodii iyo shaarubahooda meelo fara badan oo caalamka baa la isaga yimid waxaana jira naadiye ay leeyihiin dadka ay hiwaayadooda tahay ama aad u xiiseeya in gadhka iyo shaarubaha ay saasoo kale ula baxaan naadiyadiiba haddaba nin qolo walibaaba waxay soo dirteen ninkii ugu khatarsanaa markaa dabadeedna tartanka waxaa la bilaabay sanadkii 1990 waana horyaal caalami ah waxaana laga bilaabay tuulo yar oo ku taala dalka Jarmalka oo la yiraahdo Black Forest arrintan ayaa imika markii dambe waxay noqotay mid caalami ah oo markaa tartamadeedu ay hore uga dhaceen gobolka Texas ee dalka Mareykanka iyo magaalada Berlin ee wadanka Jarmalka Alaska oo Mareykanka ba iyana ka dhaceen iyo meelo fara badan oo caalamka ah dad fara badan baa haddaba kuwa ka qayb galaya mooyaane iyaguna u soo daawasho taga oo iyaguna dabcan aad iyo aad u xiiseeya raggaasi aad iyo aad ka u dhaqday gadhkooda iyo shaarubahooda oo sanado fara badan ay qaarkood ku qaadato sidii horyaalkan oo kale ay u iman lahaayeen kuwa kale dee isreebreebka hore ku hadhaan dhowr nooc baa tartankan u kala baxayo 17 qaybood oo kala duwan ayaa loo qaybiyaa sida loo eegayaba liiga gadhka iyo shaarubaha waa noocyada loo xiirto intuu leeg yahay siyaabaha kala duwan ee maaragtay markaasi loo naqshadeeyay dad fara badan baa haddaba iyaguna ka soo qayb gala tartamadaasi oo daawada kuwa daawadana haddii aad maqli jirtay dadweynaha ciyaaraha xiiseeya iyagu waxay noqonayaan markaas ay la tahay kuwa gadhka iyo shaarubaha xiiseeya waxaan u malaynayaa aniga iyo qaaran ku jiro inaan tartankaa looba sii daayeen